ilbaxnimadii bunti ee boqoradii faraacinadu la baxeen dhulkii alle ayaa ahayd ilbaxnimo aan la aqoonin si faraacintu ahaayeen kuwii u horeeyay ee la macaamila iyadoo intaas dabadeed noqotay mid muhiimad gaar ah u leh faraacinta Masar ilaa markii ay arkeen nimcada waxyaalaha qaaliga ah ee laga helo dhulkan iyo dad kale shabakadaha ganacsi ee ballaaran ay ula baxeen dhulkii alle qoontii sare ee badiya berri iyo dhaqankii cajiibka ahaa ee dadkii dhulka bunti ayaa in badan lagu xusay bogaga taariikhda gaar ahaan in badan kuwa masaarida ama faraacinta xiriirkii bunti iyo faraacinta ayaa ahaa mid faa'iido badan oo ku salaysan ganacsi bunti ayaa ahayd il muhiim ah oo ay faraacintu ka heleen alaabo agtooda qaali ka ahaa markaasi diiwaanada taariikhda faraacinta gaar ahaan xilligii boqoradii Hatshepsut ayaa muujinaya socdaaladii caanka ahaa ee loo diray bunti socdaaladaasi oo aan ku koobnayn ganacsi oo kaliya si dhaqan iyo diblomaasiyad balaha taas oo ku tusinaysa xiriirka qotada dheer ee labada ilbaxnimo bunti oo hadan ku ahayd khayraadka dabiiciga ee Rabbi ku manaystay ayaa ahayd suuq loo hanweynaa xilligaasi badeecadii xilligaasi waxa ugu caansanaa malmalka fooxa dahabka alwaaxa adag ee madow iyo fulmaroodiga bunti ayaa ahayd dul cagaaran oo barwaaqo ah leh xayawaano badan sida gariga iyo shabeelka goobta istiraatiijiga ee bunti iyo wadooyinka ganacsi ayaa ka dhigay meel muhiim u ah ilbaxnimo kastoo jirtay xilligaasi ilbaxnimadaasi muhiimadda iyo taariikhda faca weyn lahayd ayaa lagu tilmaamaa inay dhacday meel ka mid ah dhulka maanta loo yaqaan Puntland Somaliland Djibouti ilaa Eritrea halka taariikhyahanadu u badiyeen dhulka xeebaha ee Puntland iyo Somaliland iyagoo cuskanaya dahabka fooxa malmalka iyo raadadka kale ee dhulkan ka soocaya Djibouti iyo Eritrea bunti oo la sheegay inay tahay hooyada ilbaxnimada faraacinta ayaan la ogeyn burburkeedii iyo sidii ay ku burburtay iyadoo aan xitaa la helin raadidkii burburkeeda ka bacdi waqtiga saxda ah ay bilaabatay ilbaxnimadii bunti oo ahaa mid aan loogeyn awgeed haddii aan ka soo tirino markii ugu horeysay ee la macaamileen faraacinta ilbaxnimadii bunti ayaa jirtay 4524 sano ka hor hadda taasi oo ka dhigan inay ahayd markii ay faraacintu tageen dhulkii bunti 2500 sano ka hor dhalashadii nabiyullaahi ciise calayhi salaam taariikhda lumidii ilbaxnimadii bunti oo aan la hubin waxa la qiyaasaa markii ugu dambeysay ee buugaagta faraacinadu qoraan inay ahayd 70 sano ka hor dhalashadii nabiyullaahi ciise calayhi salaam haddaba haddii ay inta la macaamilayeen faraacinta kaliya ay ahayd 1430 sano waxaad fahmi kartaa in ilbaxnimadii bunti ay jirtay in ka badan 10 qarni iyo haaf boqortooyadii Ajuuraan ee ka talisay dalka Soomaalida bilowgii qarnigii 13 ilaa iyo qarnigii 17 ayaa ahayd boqortooyo isku darsatay hodannimo dhuleed iyo khayraad bad iyo bariba leh Ajuuraan oo caan ku ahayd martigelinta iyo isku xirka ganacsiyada waqooyi bariga iyo bariga dhexe ee adduunka ayaa ka talinaysay dhul ballaaran oo u dhaxeeya Ras Kamponi ilaa Hobyo iyadoo oo dhanka galbeedna gaartay ilaa Qalaafaha gobolka Ogaadeniya ee Soomaali galbeed Ajuuraan oo ilbax ku ahayd xiriirada boqortooyooyinka kale ayaa la sheegaa in xiriiradeedu gaareen indha yarta China dhulka Bershiyaanka kii Roomaanka Hindidii Asia Ismaaniyiintii Turkida iyo Carabtii bariga dhexe iyadoo oo la tilmaamo inay iyagu ahaayeen Afrikaankii ugu horeeyay ee xiriir la sameeyay qaar ka mid ah boqortooyooyinkaasi xukunka islaamiga ah ee ka faa'iideysiga biyaha badda iyo safaradii ganacsi oo keenay horumarka ballaaran ee boqortooyada ayaa dhaxalsiiyay barwaaqo sooran iyo amniba dadkii xukunkeeda hoos imaanayay iyada oo martigelisay taariikhyahanadii ugu weynaa bariga sida ninkii lagu magacaabi jiray Vasco da Gama Duarte Barbosa iyo dhulmareenkii weynaa ee muslimka ahaa ee Abdullahi Muhammad ibn Battuta iyagoo intaba ku xusay kitaabtoodii maamulkii hantidii deeqsinimadii ammaankii awoodii iyo wax soo saarkii boqortooyada Ajuuraan dagaaladii ugu caansanaa ee boqortooyada Ajuuraan kasha waxaa ka mid ahaa dagaalkii Boortaqiiska boqortooyadii Boortaqiis ay ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinka ugu tunka weyn boqortooyooyinkii adduunka oo dhanka bari ee badda ka soo weerartay Ajuuraan ayaa weeraro culus ka soo qaaday xeebaha Ajuuraan gaar ahaan Makka halkaas oo Ajuuraan oo kaashanaysa boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay ku jabiyeen kiristaankii soo doolala tagay sidoo kale Ajuuraan ayaa la gashay oramada dagaal ku caan baxay magaca dagaalkii Galmadow halkaas oo oramo doonaysay dhul ballaarsi iyo hantida dhulka xeebaha iyo beeraha ah ee boqortooyada Soomaalida Ajuuraan ayaa jabisay oramadii iyadoo oo diintiisu baneed ee islaamkana gaarsiisay dadkii ay qafaalatay xukunkii adkaa iyo canshuurtii xoogganada ee boqortooyadu ka qaadi jirtay dadkeeda ayaa sabab u noqotay kala yaaca iyo
abuuranka maamulo ka soo horjeeda xukunka Ajuuraan ilaa ugu dambeyn boqortooyadii ballaarneed ee Ajuuraan ay u kala jabtay boqortooyooyin yaryar saasna uu ku istaagay xukunkeedii 500 sano jirsaday. waxaynu joognaa sanadii 1285 waa dhalashada boqortooyo muslim Soomaali ah taasoo hantin doonta Saylac iyo ilaa Addis Ababa sababna u noqon doonta dhalashada boqortooyada difaacda diinta ilaa ay badbaadiso qabrigii suubanaha ee Kiristaankii Boortaqiiska iyo Itoobiyaanku ay weerarka ku soo qaadi lahaayeen kadib asaasidii Sheekh Cumar Dunyahuus uu dhidibada u taagay boqortooyadii Ifaad 1285 hadafka boqortooyadu waxa uu ahaa ka hortagida Kiristaankii isballaarinayay una socday awdida albaabkii diinta islaamku ka soo galayay qaaradda Afrika waa magaalada Saylac Ifaad oo dadaal dheer ugu jirtay mideynta dhulkii muslimiinta ee Kiristaanka Itoobiyaanku dhibka baan ku hayeen ayaa aasaasay ciidan xoogan oo sida la sheegay ka koobnaa 20,000 oo ciidanka dhulka ah iyo 15,000 oo fardoolay ah. dagaaladii Xabashida iyo muslimkii Ifaad ayaa bilowday kadib markii boqorkii Masaarida waagaasi ninkii lagu magacaabi jiray Al-Naasir Muhammad uu bilaabay iskana xilsaaray fidinta diinta islaamka isagoo go'aan ku gaaray in dhulka xukunkiisu ku fidsan yahay aan lagu arag diin aan muslim ahayn waxa uuna gubay kaniisadihii ay Kiristaanku ku lahaayeen dhulkiisa waxa uuna ugu yeeray diintii suuban ee islaamka. Kiristaanka Itoobiyaanka oo ka caraysan falalka Al-Naasir Muhammad ayaa warqad u diray xukunkii Al-Naasir iyagoo ku hanjabay haddii aan la joojin gubidda kaniisadaha iyo la dagaalanka Kiristaanka inay iyaguna layn doonaan dagaal la ku qaadi doonaan muslimkii Ifaad sidoo kale ay biixireen ku sameyn doonaan biyaha webiga Niil. Suudaankii Ifaad oo ka jawaabay hanjabaadii Xabashida ayaa amray jihaad ka dhan ah Kiristaanka Abasiiniya duulaanna ku qaaday dhulkii boqortooyada Abasiiniyiinta isaga oo burburiyay kaniisado badan jab weynna u geystay Kiristaankii. sidoo kale Suudaankii Saadiq al-Diin ayaa xurriyadii ka xayuubay markii dambana birta ka aslay erga uu soo diray boqorkii Xabashida ninkii lagu magacaabi jiray Anfansiyoon kadib markii ay diideen inay soo muslimaan. Xabashida ayaa jawaab ahaan dagaalo ku qaaday gobolka Shaawa kaasoo dadka degan ay u badnaayeen muslimiin. dagaalo iyo taariikh badan ka bacdi 1376 waxaa xukunkii saldanada Ifaad la wareegay Suldaan Sacad ad-Diin Muhammad waxa uu sii waday dagaaladii iyo jihaadkii ka dhanka ahaa Xabashida ilaa 1403 uu ka dhintay Saylac. saldanadii Ifaadna ay daciiftay dagaalo isdaba joog ah oo Kiristaanku ku hayeen aawadeed. haddaba soo rogaal celintii faracii boqortooyadii Ifaad iyo asaasadii boqortooyadii jabisay Boortaqiiska iyo Itoobiyaanka kana hortagtay weerarada Kiristaanka ugu qorshaysnaa qabriga suubanaha ayaynu kaga warrami doonaa fadhiga kan xiga biidnillaahi al-baari.